dadka xarumihii kale ma arkaysa oo ma kaliya ma aha xamar laakiin meel walba xarunta ay waxbarashada ay ku lahaday meelii wax loo khidmay jiray inaan soo celinaa naga go'an waxaan ka rabnaa ma arkaysa idinkana dadweynaha Soomaalida iyo xukuumadaba inay arintaas nagu taageeraan waxaad ogtihiin in dawladda ay kor u soo kacayso dadweynaha waxaan ka rabnaa kalsooni waad ogtihiin tuhun iyo shaki in laga muujiyay sida loo maamulo waxbarashada deeqaha dibadda nooga timaado taas anagoo ka duulayno isbeddelka cusub isla xisaabtanka oo hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha oo la rabo in wax walba ay noqdaan wax cad waxaan maalin dhaweeto aan midabada u aasay guddi maamuli doono deeqaha dibadda nooga yimaada caruurteena la siiyo kaasoo ka kooban xubno ka socda baarlamaanka qaar ka socda aqalka sare xubno ka socda civil society dad ma arkaysa aad muhiim ugu ah bulshada dhexdeeda oo wasaaradana ay ayadana qayb ka tahay laakiin wasaaradda ay hogaaminayso taas waxaan rajaynaynaa inay keenayso dadka Soomaalida inay kalsooni helaan waxaan xaqiijinaynaa mar dambe in aysan dhicin haddii tuhunkaasi uu jiri jiray maanta kadib inuusan jiraynin oo dadka Soomaalida si cadaalad ah wixii loogu soo dhiibo anaga nalagu aamino aan rabno in ma arkaysa aan si fiican meel u marsin ra'iisul wasaare waqtigaada uu yar yahay waan ogahay soo dhawow waxaan rabaa in ma arkaysa halkan aad kelimadii dardaaranka aad ugu siiso mahadsan yihiin marka hore waxaan idinkugu hambaleynayaa haddii aad tihiin wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda inaad wasaaraddii ku furteen idinkoo adeegsaday idinka xooggiinna xoolo shacabka Soomaaliyeed aad ka soo aruuriseen idinka waqtigiina aad ka goyseen iyo idinkoo gartay inaad idinku isku tashataan inaad taas wasaaradda ku furteen horta waa tallaabo cusub oo dawladnimada Soomaaliyeed ay hore u qaaday waa idinkugu hambaleynayaa marka hore waxaan rajaynayaa marka taasna inay wasiirada kale halkan jooga iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo xafiiska madaxweynaha iyo cid walba inaan ku daysanno oo ay tusaale noo ahaato haddii sartan wasaaraddii waxbarashada ahayd aan intaan dib u dhisnay shaqaalihii wasaaradda isugu yimaadeen wasiirku uu fadhiyo wasiiradii kale oo xukuumadda ay halkan joogaan macnaheedu waxay tahay sar walba oo ay xukuumadda iyo dawladdu lahayd waa la dhisi karaa haddii aan annagu u soo jeesanno intaas ka sokow waxaan leeyahay wasaaradda waxbarashada waa wasaarad aad u muhiim ah caruurteenna in wax la baro waa sida keliya aan ula tartami karno dunida inteeda kale adduunyada sida keliya aan ugu soo laaban karno waa inaan waqti iyo xoog gelinaa in caruurteenna wax la baro caruurta wax la baraayana ma aha caruurta xamar joogta keliya wasaaraddu waa inay ogaataa inaanay wasaarad u ahayn dadka xamar jooga laakiin dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u tihiin wasaarad dadka Soomaaliyeed oo dhan inaad u adeegtaan waliba aad si cadaalad ah ugu adeegtaan in deeqaha waxbarasho wasiirku ka hadlay si daahfurnaana ummadda Soomaaliyeed oo dhan loogu qaybiyo waliba kuwa ugu mudan la siiyo waa tallaabo aan xukuumaddu ay soo dhaweynayso waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka waa qayb ka mid ah soo celinta sidii ummadda Soomaaliyeed ay dawladdeeda ku aamini lahayd ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay iyadu ogaato meel walba ay joogto dawladda la sheegayo iyada inay tahay iyadu inay dawladda tahay annagu waxaan nahay adeegayaashii dawladda iyadoo inay dawladda iyadu iska leedahay annaguna aan nahay dadka iyaga u adeegaya in wasiiradu ay sidaas u hadlayaan in wasiiradu ay sidaas wax u fahamsan yihiin in wasiiradu ay sidaas wax u maamulayaan waa tallaabo cusub oo la qaaday wasiir waa idinkugu hambaleynayaa wasaaradda waxaan idinkugu hambaleynayaa meel wasaarad fiican maadaama aad samaysateen inay shaqadiinu sii badnaan doonto waqtiga aad shaqaysaan uu intii hore ka sii badnaan doono wax soo saarkiinu uu badnaan doono ummadda Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonto waxa aad qabataan mudane xasan khayre iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdi faarax saciid juxa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiirad deeqa iyo qaarka wasiir dawladeena wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimayaasha waaxyaha xogayaha joogtada iyo dhammaan
jaamacadaha dalka daladaha waxbarashada iyo bahda saxaafadda waxaan idinku soo dhaweynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan annagoo waqtigu nagu yar yahay dartiisa waxaan rabnaa kelmadaha inaan soo gaagaabino marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka yatafadal wasiir ra'iisul wasaare shaqaalaha wasaaradda waxaa sharaf weyn maanta ii ah inaan idinkala soo qayb galo furitaanka wasaaradda inaad ku soo laabataan wasiir waa kaaga mahad celinaynaa waan aragnay shaqadii weyneed aad ka qabatay taasna waxay muujinaysaa in ma aragtay horumar aan ku sii soconno ayna mar walba wasaarad kasta ay goobaheedii shaqo ku laabanayso insha Allah marka waxaan ku rajeynaa guul wasiir aad u mahadsantahay waxaan markan kelmadda siinaynaa wasiirka arrimaha gudaha badan oo lagu daahfurayo aqalka cusub ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aan maanta ka soo qayb galo ra'iisul wasaaruhu nagu hogaaminayo waa muuqaal aad u wanaagsan waxay calaamad ka tahay in magaaladu ay soo degayso xaruntan hadda ka hor baa wasaaraddu deganayd in magaaladu soo degayso kalsoonidii soo noqonayso bay aad calaamad uga tahay waana arrin lagu farxo wasaaradda waxbarashadana hadda waxay haystaa space ama meel ay ballaaran oo ay si fiican uga hawlgasho oo dadku ku soo gaari karo oo magaalada bartamaheedii ah taas ruuxeedu waa calaamad aad u wanaagsan waxaan u rajaynaynaa shaqo wanaagsan waana maalin farxadeed soo dhawaada dhammaantiin waa mahadsantihiin aad u mahadsan wasiirka waxaan markaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare